Galcad Media News. Galcad Media News. kusoo dhawaada daawadayaal warka Galcad Media qodobada ku daawan doontaan waxa ugu dooran xogaga wadaniyiinta farmaajo la ogaadeynaya baabulayaan barnaamijyo waaweyn oo ka dhan ah madaxweyne Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud Cumar Funes oo qorsheynayo inuu xilalka ka qaaday gabi ahaanba mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan gobolka Banaadir qayro kuna la qaatay saraakiisha booliska amniga Muqdisho qaabilsan xildhibaanadii ugu badnaa isbedel doona oo Kismaayo lagu xiray ku dhawaad 20 kamid ah mas'uuliyiinta Jubbaland oo Muqdisho ku xayiran Puntland oo eedan kulul u soo jeedisay dawladda dhexe nin toorey watay dad ku dhexdelay xarun looga taliya booliska Faransiiska iyo khasaaro badan oo ka dhashay dibadbaxyada ka socda dalka Ciraaq hagaag haddii aan ugu cusubtahay subscribe channelka si aad u hesho warar ku saabsan akhbaaraadka caalamka intii aad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish ayaa maalmaha soo socda lagu wada in uu qaaday tallaabooyin ballaaran oo isbedel maamul ah war aan helnay ayaa xaqiijinaya in gudoomiyaha Cumar Finish uu xilalka ka qaadi doono gudoomiyaasha degmooyinka ku xigeenada gobolka iyo agaasimayaasha gobolka Banaadir xilka qaadista ayaa laga yaabaa inaysan saameyn dhammaan mas'uuliyiinta boosaska aan soo xusnay balse waxaa la sheegay in dhawaan ay dhici doonto xilka qaadis iyo magacaabis ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo xaqiijiyay in arrintan ay tahay mid ay isla qaateen madaxda dowladda Soomaaliya waxaana lagu bilaabi doonaa gudoomiye ku xigeenada gobolka Banaadir arrimahan ayaa lagu micineeyay in shaqada gobolka ay u baahan tahay in lagu sameeyo isbedel ballaaran oo dhan walba ah sidoo kale xogta aan helnay ayaa sheegaysa in xilka qaadista iyo magacaabista intuba aysan dhici doonin isku waqti balse socod doonto ilaa toddobaadyo waxaana laga yaabaa inay saameyn ballaaran ku yeelato mas'uuliyiin culus oo ku dhow madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre madaxtooyada Soomaaliya ayaa diyaarinaysa banaanbax xooggan oo ka dhan ah madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed sida aan xogta ku helnay banaanbaxan la filayo inuu ka dhaco Muqdisho ayaa waxaa amray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida ay la wareedyo ku sugan fila Soomaaliya inoo sheegeen dawladda ayaa aad u dhibsatay kulamada Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ka wadaan Muqdisho ee looga soo horjeedo xadgudubka ay dawladdu ku sameysay xuquuqda socodka muwaadinka caburinta siyaasiyiinta iyo jidadka xiran ee Muqdisho waxaa sidoo kale banaanbaxa la qorsheynayo uu yahay mid jawaab u ah ama looga hordhacayo dibadbax kale oo madaxdii hore ay abaabulayaan si ay u muujiyaan inaysan la dhacsanayn siyaasadda dawladda abaabulka banaanbaxa uu Farmaajo amray ayaa waxaa loo xil saaray garab loo yaqaan xogaga wadaniyiinta Farmaajo ee ku xiran madaxtooyada fila Soomaaliya si aad ahna daacad ugu ah madaxweynaha Soomaaliya oo bil walba ka qaata mushaar xogaga wadaniyiinta Farmaajo ayaa ah koox u carbisan abaabulka iyo guulwadeynta madaxweynaha kuwaas oo xubno firfircoon ku leh degmooyinka gobolka Banaadir dibadbaxa ay diyaarinayaan xogaga wadaniyiinta Farmaajo ayaa waxaa ka qayb galaya hooyooyin ku xiran iyo kuwa ka shaqeeya xarumaha degmooyinka gobolka Banaadir iyo dad laga soo wadiyay qaar ka mid ah xerooyinka barakacayaasha Muqdisho qorshaha banaanbaxa xogaga wadaniyiinta Farmaajo ayaa waxaa qayb ka ah in Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif lagu calaamadeeyo qabyaalad loona muujiyo in madaxweynaha ku mucaaradayaan qabiil iyagoo adeegsanaya dadkooda oo ah qabiilka ugu awoodda weyn Muqdisho ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo kormeer ku tagay xarunta taliska guud ee ciidanka booliska Soomaaliya ee Kumaanda Buluusiya waxa uu kulan la qaatay saraakiisha sare ee ciidanka booliska Soomaaliya oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Generaal Cabdi Xasan Maxamed iyo labadiisa ku xigeen kulanka oo qaatay saacado ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta qorshaha sugidda amniga Muqdisho fududeynta dib u habeynta lagu sameeyo ciidanka booliska iyo qorshe ciidamo boolis ah gaar ahaan kuwa daraawiishta lagu geenayo tuulooyin degmooyin ka tirsan Shabeellada Hoose dhawaana laga saaray dagaalamayaasha shabaab labada taliya ku xigeen iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya
jenaraal cabdi xasan maxamed ayaa xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxay xog ka siiyeen howlgalladii u dambeeyay ay ciidamadu ka sameeyeen gudaha Muqdisho iyo deegaanada ku hareeraysan, waxayna ballan qaadeen inay fududeynayaan dib u habeynta ciidanka booliska Soomaaliya iyo qorshe ciidamo boolis lagu geynayo deegaanadii dhawaan shabaab laga saaray. Labada taliyo ku xigeen iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed ayaa xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxay xog ka siiyeen howlgalladii u dambeeyay ciidamadu ka sameeyeen gudaha magaalada Muqdisho, waxaana ay ballan qaadeen inay fududeynayaan dib u habeynta ciidanka booliska Soomaaliya iyo qorshe ciidamo boolisa lagu geynayo deegaano dhawaan shabaab laga saaray oo ku yaala Shabeellada Hoose. Markaana Kismaayo, wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ciidamada ammaanka maamulka Jubbaland ay bilaabeen aruurinta xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka ee ka tirsan isbedel doonka ee ka dhisan Kismaayo. Ciidamada ammaanka Jubbaland ayaa la sheegay inay xabsiga dhigeen 2 xildhibaan iyo oday dhaqameed kuwaas oo ka tirsan garabka isbedel doonka, iyadoona xubnaha lagala baxay guryo ay ka degan yihiin magaalada Kismaayo ee Jubbada Hoose. Wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan maalmihii u dambeeyay Kismaayo ka socdeen beegsiga lagu hayo xubnaha ka tirsan garabka isbedel doonka ee ka jira Kismaayo ee Jubbada Hoose. Kaafiye Cabdi Faarax oo ah gudoomiye ku-xigeenka garabka isbedel doonka oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in maamulka Axmed Madoobe caburin ka hayo shacabka, siyaasiyiinta iyo xildhibaanada isbedel doonka. Ma jiraan wali wax war oo ka soo baxay dowlad goboleedka Jubbaland kaasi oo ku aadan inay faahfaahin intaasi dheer ka bixiyaan eedeymaha loo soo jeediyay. Ku dhawaad 20 ka mid ah mas'uuliyiinta Jubbaland ayaa Muqdisho ku xayiran. Weli magaalada Muqdisho waxaa ku xayiran mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland kuwaas oo dana kala duwan u yimid caasimadda Muqdisho, halka qaarkoodna uu transit ku ahaayeen garoonka Aadan Cadde Muqdisho. Warbaahinta ayaa baaritaan ay sameysay waxay ku ogaatay dowladda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ku hayso mas'uuliyiin badan oo ka tirsan Jubbaland kuwaas oo doonayay inay dib ugu laabtaan Kismaayo. Warbaahinta ayaa baaritaan ay sameysay waxay ku ogaatay dowladda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ku hayso mas'uuliyiin badan oo ka tirsan maamulka Jubbaland kuwaas oo doonayay inay dib ugu laabtaan Kismaayo. Dadka Muqdisho ku xayiran waxaa ka mid ah xeerlaaliyaha maamulka Jubbaland Axmed Sheekh Ismaaciil Saciid oo dhawaan shir uga qayb galay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Shirkaas ayaa ahaa mid u dhaxeeyay xeerlaaliyaasha heer qaran iyo heer dowlad goboleed, waxaana shir gudoominayay xeerlaaliyaha qaranka. Waxaa sidoo kale Muqdisho ku xayiran gudoomiyaha degmada Garbaharey iyo Imaam Cadow Kaarshe. Shakhsiyaadka kale ee ka tirsan Jubbaland Muqdishona ku xayiran ayaa iskugu jira agaasimayaal waaxidyo, gudoomiyaal degmo, shaqaale ka tirsan wasaaradaha Jubbaland iyo mas'uuliyiin kale. Dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay soo hortaagtay bixitaanka dadkan, waxaana qaarkood lagu hanjabay in la xiri doono haddii ay warbaahinta wareysi siiyaan, sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan kuwa ku xayiran Muqdisho. Golaha wasiirada Puntland ayaa shaaciyay in dowladda federaalka Soomaaliya ay la soo baxday dagaal cusub. Shirka golaha wasiirada maamulka Puntland ayaa toddobaadkan ka qabsoomay markii ugu horeysay magaalada Boosaaso, uuna shir gudoominayay madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdulaahi Deni. Shirka ayaa waxaa looga hadlay amniga, xaaladda siyaasadeed ee dalka, dib u eegista diiwaanka siyaasadaha iyo xeerarka Puntland, dhismaha golayaasha deegaanka iyo warbixino kale. Golaha wasiirada Puntland ayaa sheegay in aad uga walaacsan yihiin habdhaqanka xukuumadda federaalka Soomaaliya ay la soo baxday. Wuxuu goluhu sheegay in habdhaqanka dowladda federaalka uu yahay mid ay ku kaldirayso nidaamka federaalismka ee Soomaaliya ay qaadatay, taasina ay dhaawac weyn ku tahay hanaanka geedi socodka siyaasadda Soomaaliya. nin toorey watay ayaa dad ku dhex dilay xarun looga taliya booliska Faransiiska. nin watay toorey ayaa qof ku dhex dilay xarunta ugu weyn ciidamada booliska dalka Faransiiska ee ku taala magaalada Paris. wararku waxay intaasi ku darayaan in qofka falkan geystay oo magaciisa la qariyay oo isagoo qeylinayo toorey la dhex galay goob ay saraakiilu fadhisay, taasoo keentay in hal ruux uu geeriyoodo 7 kalena uu dhaawaco. warka booliska ka soo baxay ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay markii dambe ninkaas toogteen. wararku waxay intaasi ku darayaan in ruuxa weerarka geystay oo 40 jir ahaa uu ka tirsanaa shaqaalaha xarunta booliska 20 sano la soo dhaafay. ugu dambeyntii dibadbaxyo rabshado watay oo ka socda caasimadda dalka Ciraaq ayaa khasaaraha ka dhashay kordhay. dibadbaxyada
oo markii hore ka bilowday caasimadda Talaadadii ayaa ku fiday dhammaan magaalooyinka dalka Ciraaq. Dowladda ayaa bandow ka dhigtay magaalada Baghdad iyo dhowr magaalo oo kale, waxaana la jaray internetka. Abaabulayaasha dibadbaxyadan rabshadaha isku beddelay ayaa sheegay in waxa ugu weyn ee ay ka cabanayaan ay tahay musuqmaasuq dowladdu samaysay. Rasaas ay ciidamada ammaanka ku rideen dad dibadbaxayay magaalada Baghdad ayaa sababtay dhimashada in ka badan 30 ruux sida laga soo xigtay xarumaha caafimaadka. daawadayaal waa naga intaa warkaad kala socoteen Galcad Media haddii aad ugu cusub tahay subscribe channel Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News.